waxaa horta aad iyo aad muhiim u ah in aan dagaalka nooca dagaalka aan ku jirno inaan fahamno yaa muhiim ah dagaalkan Soomaaliya kaligeed ku gaarmaha caalamka meelo badan uu ka jiraa meelo badan oo Soomaaliya ka xoog badan uu ka jiraa dawlado degan oo burbur dawladnimo waxba aan ku dhicin oo waliba aad iyo aad u horumarsan dagaalkan yaa ku jira haddii maalin cad oo barqa ah maxaan ku raraa London iyo Paris iyo Copenhagen iyo meelo kale oo badan oo muxuu ahaa Yurub dalalka horumaray Yurub kamida ay u ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo ma arko sabab ay qariib u tahay Soomaaliya inuu ka dhaco culayska dagaalka nooca maanta dunida ay ku jirto tilmaama laguma cabiri karo hal qaraxo inta ka dhacay xagga ka dhacay dagaalka iyo horumarka dagaalka aan ku jirno al-shabaab iyo kooxahan xag jirada ah ee maxaan ku raraa dagaalka aan kula jirnay yani waa mujtamaca Soomaalida dadku dhex jiro gaatamayo oo meeshii nugul annagu waxaan soo nimiday ayadoo madaxtooyada Soomaaliya inta la weeraro la galo ayadoo baarlamaanka la weeraro ayadoo xariyaha militariga iyo guryaha waaweyn ee dawladda iyo la weeraro yaan soo marnay waan ka nimiday hadda waxaan joognaa hoteelada iyo meelaha rayidku degan yahay iyo cafeteriyaasha iyo restaurantiga dadku ay qaxwada ka cabaan cuntada ka cunaan in la qarxiyaan joognaa barina ilaahay idinkiis meeshaas inta la qarxi waayo in la waayo waan tageena marka waxaan rabnaa laba waxyaabood nooca dagaalka aan ku jirnaan inaan fahmno meeshii aan ka keenay qarxiyadan dhacay laftooda meeshii aan ka keenayna in ayadana la fahmo way sii dhimanayaan waana sii dhamaanayaan wayna dhamaan doonaan haddii alla yiraahdo dagaal qarax la sameeyo iyo qof jidka marayso oo la gaado oo aan hubaysnayn oo civilian oo la toogtay macnaheeda daliil uma aha inay socoto waana dagaalka noocaas oo aragtay adduunyada meel kasta oo ka dhacay Soomaaliya awoodeena iyo ciidankeena iyo qalabkeena iyo waxaan haysanahay marka la eego waxaan annagu aan ku doodaynaa Soomaaliya inay tahay model ama muunad adduunyada dagaalkan ku jirtay la dhihi karo waa mid kaliya ee inay guuleysanayso u muuqata waa mid kaliya ee maxaan ku yiraahday wiilashoodii hadda ay ka soo noqonayaan colaadii waa mid kaliya ee dagaalkeedu oo meelaha ku soo oodmay Soomaaliya marka annagu dhinacan dawladda ka dhisayna dhinac maxaan ku yiraahdaa dagaalan ku jirnaa dhinac anagoo dagaal ku jiraan ciidamadii haddana dhinaca kale ka dhisayna awoodeena dhaqaalaha way liidataa dhowr iyo 20 sano gadaal u eegnay oo burbur iyo muxuu ahaa dawlad la'aan waxaas marka la isku geeyay meesha aan marayno meel aad iyo aad u sareysa waaye